الحين ساكي وحاشير iskugu yimid golaha midowga musharaxiinta xubnaha inta joogad u jeedaan iyo xubnaha maqan oo ay khadka ku wada hadleen intaba ka bacdi waxay isla garteen gunaanadkii inay soo saaraan warsaxaafadeedka aan inay akhri doono ka bacdina kusimaha guddoonka ayaa madaxweyne xashiq ayaa wixii ku dari doono tacliiq ah ama faalo dheeri ah golaha midowga musharaxiinta wuxuu u taagan yahay xaqiijinta sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho cadaalad ah xor iyo xalaalna ah taasoo leh sharciyad lagu wada kalsoon yahay horseedana xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hanaanka dowladnimada goluhu wuxuu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadanaa doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka magacaabista bulshada rayidka ah xulista xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada goluhu wuxuu arkaa habraaca doorashooyin golaha shacabka ee ka soo baxay golaha wadatashiga qaran in uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 27 Maajo oo dhigaya in doorashooyinku ay ku dhacaan si cadaalad ah xor ah xalaalna ah goluhu wuxuu in muddo hortaagnaa isku daygii uu madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku doonayay inuu doorashooyinka dalka ku boobo waxaan suuragal ahayn in golaha wadatashiga qaran ay dhaqankii Farmaajo lagu diiday iyaga u dawamareeyaan goluhu wuxuu arkaa in habraacu uu dusha sare ka yahay ka sito magac doorasho laakiin gudihiisa ay tahay soo magacaabis wuxuuna ka digayaa caaqo-xumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shugto oo ay ka mid yihiin kow colaad sokeeye sida haatan dariskeena iyo dalalka kale ee nala midka ah ka dhacday in shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo ku shubasho ku dhacday in nidaamkii dowladnimo uu waayay sharciyadii iyo aqoonsigii shacabka waxgaradka siyaasiyiinta doonaysa dowlad si sax ah ku dhalata in kooxaha xaq jirka ay ka macaashaan aanada iyo tabashada ka dhalata boobka doorashada haddaba goluhu wuxuu ugu baaqiyaa golaha wadatashiga qaran inay dib uga fiirsadaan go'aanada ay qaateen wuxuuna goluhu soo jeedinayaa kow in 135 oday dhaqameed loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka labo maadaama goluhu shacabku uu matalo beelaha waa in odayaasha dhaqanka oo kaashanaya nabadoonada iyo caaqilada kale ee jufada kursiga ku astaysan loo madax baneeyo xulista ergooyinka kaalinta dowlad goboleedkan ay ku ekaato fududeynta iyo amniga doorashooyinka saddex in la suuliyo caqabadaha badan ee lagu gudbay doorashooyin gaar ahaan kuwa la xiriira dambi baarista iyo qarashaadka lagu cusleeyay tartamayaasha iyo ergooyinka intaba afar in la waqtiyeeyo jadwalka doorashada oo 2 jeer xilligeedii horay dib uga dhacday shan in doorashadu ay ka dhacdo goob dhexdhexaad ah oo amnigoodu sugan yahay amniga goobtana ay sidoo jir ah u sugaan booliska dowladda goboleedka dowladda federaalka iyo AMISOM iyagoo ilaalinaya nabadgelyada goobta isla markaana fursad galaangal oo siman u siinaya musharaxiinta u tartamaya xilka xildhibaannimo 6 in aan xubnihii baarlamaankii hore baaritaan lagu celin halka tartamaha cusub ee xilka xildhibaan looga joojin karo oo keli ah faldambiyeed ee maxkamad xukuntay iyo in lagu hayo far argagixiso oo cadeynsita 7 si loo kala saaro go'aanada siyaasadda iyo howlaha farsamo waa in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal loo madax baneeyo kaalinta farsamo ee hirgelinta doorashooyinka goluhu wuxuu ku adkeysanayaa in doorashadu ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah taasoo ah dan qaran oo masiiri ah kana gudubsan danta tartamo kasta ee xilliga dhow ugu dambeyn goluhu wuxuu ugu baaqiyaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay kaalintooda ka qaataan sidii doorashadu ay ku noqon lahayd mid ku dhacda si xor ah lahna sharciyad lagu wada kalsoon yahay oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aaminaan